mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo ay weheliyaan xubnaha ugu sarsareeya ee qaar ka mid ah naadiyada akhriska iyo qoraalka ee dalku ayaa maanta waxay si wada jir ah maamulka degmada Berbera ay ku wareejiyeen 59 kartoon ay ku jiraan in ka badan 1500 oo buug oo ay ugu talagaleen in la dhigo isla markaana lagu akhriyo buugaagtani Berbera Public Library oo ah library-gii ugu horeeyay ee buugaagta lagu akhrisan doono ay yeelatay magaalada Berberi dhismihiisana ay hadda wada dawladda hoose ee degmada Berbera waxaana ugu horeyntii ka hadlay munaasabadaasi lagula kala wareegayay buugaagtaasi isla markaana faahfaahin ka bixiyay buugtani iyo noocyada ay yihiin xildhibaan Cabdirasaaq Aar Jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo sidoo kale Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan Mustafa Teacher oo ka mid ah xubnaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan ee magaalada Burco buugtan maanta doonayna library Berbera ku wareejino damiyaha ku wareejino sabab soo wareejino library-ga ma markii horeysay aan degmo ama xarun ka qayb qaadano buugtan degmada Burco iyo billig hore laga bixinay buugaagtani waxay hormuud u noqonayaan in ay goboladu yeeshaan xiriir ah wax isugu deeqis sida aqoonta ay koow ka tahay waxay ka qayb qaadanayaan isku xirkii gobolada iyo degmooyinka dalka gudoomiyaha naadiga akhriska ee gobolka Saaxil Maxamuud Jaamac Dhego iyo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay buugtani lagu wareejiyay iyagoona uga mahadnaqay xildhibaanka iyo xubnaha kale ee wehelinayay sida ay deeqdani miisaan kale u soo gaarsiiyeen qaadka qiimaha badan wax lagu misaalaan inaad maanta xildhibaanka iyo guud ahaan tiimka Burco ay degmada Berbera ay ku wareejiyeen gaar ahaan Berbera Library aad baan u mahadcelinayaa maantana isagoo ka mid ah haddana in buugtii bulshada ugu horeysay ee soo gaadha mar labaad baan u mahadcelinayaa dhawaan ayay ahayd markii uu sidan oo kale xildhibaan Cabdirasaaq Aar Jaamac uu 200 buug ku wareejiyay naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan ee ka dhisan magaalada Burco isagoo xildhibaanku ah xubin ka tirsan naadigaasi Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.